Soomaaliya waa dal leh taariikh fac weyn, dad adkaysi badan iyo qurux dabiici ah oo aan weli si buuxda loo ogaan. Muuqaalkan waxaan idinku soo bandhigaynaa 5 magaalo ee ugu quruxda badan Soomaaliya, laga bilaabo nambarka 5 ilaa ka 1. Magaalo kasta oo liiskan ku jirta waxay leedahay muhiimad gaar ah, juqraafiyadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka. Kaale aan ku wareegno quruxda geeska. Nambarka 5 waa Baydhabo, oo sidoo kale loo yaqaan Baydhabo Janay. Waxay ku taallaa gobolka Bay ee Koonfurta Galbeed Soomaaliya. Baydhabo waxay caan ku tahay dhulkeeda barwaaqada leh, beeraley badan iyo beero badan oo ka duwan magaalooyinka kale. Waxaa lagu beeraa galley, khudaar iyo miraha kale ee nafaqada leh. Waa xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana sidoo kale loo yaqaan xarun diimeed iyo maamul. Inta ay la kulantay abaaro iyo qalalaasi, Baydhabo waxay weli ku tallaabsanaysaa horumar, iyadoo kaashanaysa Allaha weyn iyo dadaalka dadkeeda. Kaalinta afraad waxaa ku jirta Kismaayo, magaalo muhiim ah oo ku taalla koonfurta Soomaaliya, isla markaana ah caasimadda dowlad goboleedka Jubbaland. Waxay ku taallaa halka uu webiga Juba kaga darsamo Badweynta Hindiya, taasoo ka dhigaysa meel hodan ah oo kalluun, kaymo iyo dhul beereedba leh. Dekedda Kismaayo waxay ahayd meel ganacsi oo muhiim ah qarniyo badan, waxaana maanta ka socda ganacsiyo gudaha iyo dibadda ah. Magaaladan waxaa ku nool dad kala duwan oo kasoo kala jeeda gobollada dalka, waxaana horumar laga dareemayaa dhinacyada nabadgelyada, ganacsiga iyo adeegyada bulshada. Lambarka 3 waa Boosaaso, oo ah xarunta dhaqaalaha ee Puntland. Waxay ku taallaa xeebta Gacanka Cadmeed, iyadoo isku xirta Soomaaliya iyo dalalka Carabta sida Yemen iyo Cumaan. Dekedda casriga ah ee Boosaaso waxay muhiim u tahay dhoofinta xoolaha nool, soo dejinta shidaalka iyo guud ahaan isdhaafsiga ganacsiga. Magaalada Boosaaso waxay kor u kacday sanadihii u dambeeyay, iyadoo la dhisay waddooyin, ganacsiyo waaweyn iyo xarumo cusub oo shaqo abuur. Waa meel ay ku sii jeedaan dad badan oo Soomaali ah oo safar u ah dibadda, iyo xarun muujinaysa dadaalka ganacsiga Soomaaliyeed. Kaalinta 2 waa Hargeysa, caasimadda Somaliland, oo caan ku ah xasilloonideeda iyo wadaniyadeeda. Magaalada waxaa ku nool in ka badan 1 milyan oo qof, waxayna caan ku tahay suuqeeda geela, mid ka mid ah kuwa ugu weyn Afrika. Intaa waxaa dheer, Hargeysa waa hooy farshaxan, waxbarasho iyo taariikh fog leh. Laasgeel, oo ah sawirro qadiimi ah oo dhagaxa lagu sawiray, waxay muujinayaan noloshii hore ee Soomaaliya, waana tusaale wanaagsan oo ah horumar iyo xasillooni Soomaali leedahay. Ugu dambeyn, nambarka 1 waa Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, magaalada ugu weyn iyo wadnaha taariikhiga ah ee ummadda Soomaaliyeed. Magaaladu waxay leedahay xeeb qurux badan oo ku fidsan Badweynta Hindiya, waxayna ahayd deked ganacsi muddo ka badan 1000 sano. Muqdisho waa magaalo isku darsatay dhismooyin cusub iyo kuwa hore, rajo iyo dhibaato. Waa xarunta siyaasadda, dhaqanka, waxbarashada iyo dib-u-dhiska, waxaana ka socda dadaallo badan oo lagu soo celinayo bilicda iyo adeegyada, waxaana dadkeedu muujinayaan adkaysi iyo jacayl wadani ah. Kuwan waa 5 magaalo ee ugu quruxda badan Soomaaliya. Mid walba waxay leedahay sheeko gaar ah oo mudan in la maqlo. Magaaladee ayaad adigu u aragtaa tan ugu quruxda badan Soomaaliya? Noogu reeb faallo, fadlan like saar, la wadaag, kuna biir kanaalkayaga Soomaaliya Horn of Beauty si aad u aragto muuqaallo kale oo xiiso leh oo ku saabsan dalka iyo dadkeena.